wuxuu new qof xidh naga dhexiyay ayaa problem yar iyo dhibaatooyin yar baan soo dhex galay sidaa daraadeed werwer aan ka qabo waxaa jira mararka qaar baska markaan saa wuxuu dir ama qof kale wuxuu dirba inaan arko qofkii aan lambarkiisa lixaad sii gelinay macaan lambarkaad lahayd waxay ku qornaa lubiga markaan lacag diraya baan arkaa anigoo lix qoray markaan lacag diraya baan arkaa anigoo lix qoray haddaan ruux lagu hirto ahaa labka kiisa adag haddeen nin loo aado la haystaan ay tarta shaaradii naftayday markii guri aan yagleelay aniga aabaha Yamaarug markii guri aan yagleelay aniga aabaha Yamaarug noloshan yeeg ii horseeday isana qaad uun yagaayo waxaan marum yalab ku gaaray aniga yeelkee naftayda inaan yacyo idinka muuqan dhexdana aan yeel ku geejo trick waxa weeyaan waa nuur ama waa nal weeyaan waxa laga yaabaa gabadha trick loo bixiyay inay tahay gabadh dhuxula ama aad u madow ah iyada laftarkeeda maxaa looga jeedaa kale qof mudabad ku raysa dayaxo oo kale oo suugaanta soo galaysa nin cadcad la yiraahdo waan saaxiibnay bo madow xagana ka salaamay cadcad halkan baan aad uga salaamayna ku soo dhawaada YouTube channel-ka Hi Mark waxa maanta martino ah Shaafici Yusuf Maxamuud Shaafici waa kuma magacaygu Shaafici Yusuf Maxamuud kamida dhalinyarta hal abuurka xagga suugaanta ahna nin reer Burca dhawaana soo tubaraaco in Hargeysa ku nool xamaamadiisa soo qaatay marka taariikh badan malihi Shaafici waa ka waxa tahay baan ogaayay haddii laysoo waxyoodo walay kuma aaminayo waxa tahay baan ogaayay haddii laysoo waxyoodo walay kuma aaminayo adiga kugu weecan maayo sidaad waran ula dhacayso wadnihii ku jeclaan ogaayay haddaad waxdi ii qorayso wanaag kugu ma imaato Shaafici qisada ka dambaysa maxay tahay waa heesta magaceedu waxa la warchaaf erayga warchaaf wadilin marka macnihiisa la eegayo marka waxay ka hadlaysaa qof isjecel marka waa qisada qisada waxay ku timi kulli marka dhalinyarta leeyahay waxa la sameeyo xiriir la yiraahdo inta badan ku badan dhalinyarta marka laba qof oo xiriir wada lahaa isjecel ayaa isku dhacay marka mid kamid ah ayaa dib go'aas soo sameeyay oo dib u soo noqday khalidkiisa ka soo noqday marka qofkii kale ayaa haddaad wax kasta samayso haddaad wax kasta iyo akhrido waxaan ka xigaa wadkan ka xigaa inaan dib u soo noqdo marka waxay oranaysaa waxa tahay baan ogaayay haddii laysoo waxyoodo wallee kuma aaminayo adiga kugu weecan maayo sidaad waran ula dhacayso wadnihii ku jeclaan ogaayay haddaad waxdi ii qorayso wanaag kugu ma imaato markaan adig ka wareegay wadudiga ka fogeeyay waxaan baan galay hadeere mar dambe warjaafi maysid wadeeca waxay deys walaacu iga fogaada ayaantii aad warkayga wacaashaydii ilowday ayaantii aad warkayga wacaashaydii ilowday wallaahi haddaad adduunka wixii yaalaba ku deeqdo inaan wehelkaaga doono wadkan doorta xaggayga markaan adig ka wareegay wadudiga ka fogeeyay waxaan baan galay hadeere mar dambe warjaafi maysid mar dambe warjaafi maysid oo mar dambe dil maysid macnaha meel adag ku kiisagay Shaafici isbedelada suugaanta oo hadda weyn la soconaayo dhalinyarada badanaa waxay iyagaaba qaarkood iska samaystaa ereyay isku keeneen oo dhalinyaraduna aad buu xiiseeyaan tusaale ahaan heestan macawiista iga dhacday ma fahmay wax noocaas maxaa kaaga qorshaysan isbedeladaas ay suugaantu isbedelayso ma waxaad leedahay tan dambe la jaan qaado oo maxaa la yiraahdaa ereyada noocaas macawiista iga dhacday waxa sameeyo mise waxaad leedahay kuwii hore uun kulli horta wax kasto oo marxaladu maraya ama waqtigu maraya marka suugaantuna kulli isbedelka un bay la socotaa kulli anagoon dhaqankiina ka tegin laakiin isbedelka waan la soconaayo wixii marba dhalinyartu hadba siday wax u fahmayso
haddaad ereyadii waaweyneed aad markasta dee isticmaasho un laga yaabaa inaan dee dadka dhalinyartahay jiilka waqtiga aad ku wada jirtaan aanay fahmin sidaa daraaddeed anagoo xaggii dhaqankana aan ka tegin haddana waanu la soconaa dhalinyarto xaggaa dambe waanu beydhsanaa. Okay. Waxaa la yidhaahdaa badanaa gabayada iyo waxaa laga sameeyaa baa la yidhaahdaa dadka qaarkood ciil bay ka gabayaan ama farxad ama ama khayaalo waxyaabo khayaala ayay ka gabayaan baa la yidhaahdaa. Adigu intaba ma ka gabaydaa mise? ها كل قيبة فربض وكجبيا لكن منسويك وحيو بديهن أون وحيالا دعذوينا أمبا وحيالا حقيقة أمباي كهلاني أنت بدن ويبيريه من أول كوحلي هذا مركا أنت بدن حقيقة أيو بديهن كويو ما هي الراعبة إن سوغانت حنبار سنتين مسوي حويا ومد إمكن كون دلتي ما هرتا ومد هبة أيو دي مقرنا سايلة هبيسي هدرنا ويلو كرتايو كل فاميلي ويجرا كوها الأور أو حتريو ولا الله هيك مديه مركا كل هدرنا ولا أنا كرايا هبنا وينو كرت مركا إن حسها تسمى سمدت بدو ديبتها مسا ولي عيد ما ديبين وواحد سلاير حي حدا بلوغة سلاير حي إنها تدو ديبت كل ويجران هيسو أنو ديبين كستان هيسو وين هاي سا هيس أروسيا وكلا لكن هيس عادي هولي أن فناو ديب حكم إذا هيساس يمكن ما جرتو هيسا وحكم إذا هيس ليها هيس جعيلها تلا هذا جعيل كان كو قباتشي هي نفط إذا ما نقول له وين كرتا هذا راليه ورد حقا عدك عاد سمو يعني حنوا الناس حاطين الدوام كريوي هذا نساء كله وركا ريادي يمكن إنه آخر كرا كاريدا سوحيا جعيل كان كو قواتشي هي نفط إذا أردنك يا ديك جرتا محلي جدي شيء حقيقي باته شيء هذا هتانا أرك جدي بحنون جد كان حبيب لا شارية جمال كادلي هذا دايها سوجي تيو مركان كشلي عبا أنا وجوي دكان كلا أذان كلا شارية نفط إذا شارية صوت ضدك كلوان شارية شكذا قلبي كيكه واو هسه يا قادم كان دبيت هسه وحقادم لي فتح طلاب marka muusigana isaga waxa tumeeyay kaloo leeyahay diira marka way jiraan heeso yar laakiin insha Allah hadda isla YouTube labada fanaan xagan ku salaamayna Cabdi Yara iyo ninka kale waxa jirta maan soo ad leedahay lugooyo naftaad badaa dartaa leeyahay soo laciif baan hay walla waxaan filayaa malaha daadiska ku badan oo waxa tahay broken heart ama qof la qalbi jabiyay baad ma oran karnaa may horta laba oran karo annagu laakiin waxaan ka hadalnaa bulshada dareenkeeda marka dee kulay dadka un baan u hadalnaa dadkuna waxaan tirnoo waxay moodeen annaga u nagu socoto laakiin bulshadaan u hadalnaa sidaa daraaddeed bulshada kuwa qalbi jabay iyo kuwa kale waa ku jiraan marka waxay ka mid tahay un maansooyinka bulshada ka hadlaysa amba qisooyin kale oo dad kale ku yimid ka hadlaysa wey okay iyo ku saabsantahay qisadan qisadan waxay ku saabsantahay horta inan bay ku saabsantahay waana maansooyinkii ugu dambeeyay aan sameeyey maalmaha ka mid ah anigoo bas saaran ayaa waxay la soo fadhiistay inan marka inankii waan iska rabnay way bariidiyey markaan waxbaan inankooda fadhinay ayaa inankii waxa uu doonayay waqtiyada baska la saaran yahay wax la diraa lacagtii baska marka baskii markuu isiri dir ayaa inankii waa marba waxaan arkaayo moolkii marba lahoo magaranaysa ay dhigaya marka waxaan simlaa inanka lacag baan ugu jirin oo iska daana diray marka wuxuu yimaayay ugu jirta lacag bal ka dir buu ka dir ayuu waan uga diray wuxuu niyo maxaa ku dhacay xaad ترى ما waxaan siinaa meel kale malaakay ma wala soo loo diraan karnaa inta waxaan ku xalaayo suuqii baskan ka dib marka qasada ma sidaan ka sameeyay ayuu iga sheekay marka wuxuu niyo qof xir naga dhixii ayaa problem yar iyo dhibaatooyin yar baan soo dhexgalay sida daraadeed warwar aan ka qabo waxa jira
mararka qaar baska markaan saa wuxuu dir ama qof kale wuxuu dirba inaan arko qofkii aan lambarkiis lixaad sii gelinay marka maansidaasaan markaa tiriyo in ka mid oo ahayd macaan lambarkaad lahayd axay ku qornaa lubbiga markaan lacag diraya baan arkaa anigoo lix qoray marka maansida sidaasay ku timi markaa markii dambe aan dhamaystira waxaanay odhanaysaa iyadoo dhamaystiran lugooyo naftaad baddaa dartaa liicliicaysoo la-aantaa qaaliya liciif baan ahay walle lamaane markaan arkaba intaan laamadoodsadaan jacaylkeennii lumiya lurka baan la ooyaya waxaan ahay laangaro markaad iga leexataan wixii libin aan lahaa dhammaantood ay lumeen macaan lambarkaad lahayd axay ku qornaa lubbiga markaan lacag diraya baan arkaa anigoo lix qoray markaan lacag diraya baan arkaa anigoo lix qoray haddaan ruux lagu hirto ahaa labka kiisa adag hadeer nin lo aadaho la haystaan hay darta hadeer nin lo aadaho la haystaan hay darta ladnaay adigay naftani darta ay u looganto oontii ay u liqlaadeen mar uun libiq soo jalleec waxaa weli igu ligligan inaad laba wiig macaan loofkeenii baajisay ladnaantii igu celi macaan lambarkaad lahayd axay ku qornaa lubbiga markaan lacag diraya baan arkaa anigoo lix qoray 22 ka badan intaan laabtaydan xalan taswiirta ku loohayeen ladaan ku niyeystaa loogada qalbigaa too naftayda adaa ku ladhan adaan ku leyliyo lilaahi anaa ku jecel haddaad i tidhaa ladnaay wadnaha hadyad iigu laabkaygaan ku labaysaniyo runtii la baxban ku odhan macaan lambarkaad lahayd axay ku qornaa lubbiga markaan lacag diraya baan arkaa anigoo lix qoray anigu aan laabtabo kala laabtaba ifkee adigu nolol lagu hirto baluulaba maad samayn maansada soo laabayoo lixaadkaygaa tahee labuun soo kala galo liibaan ama loo istaago liibaan amba loo istaag marka wuxuu leeyahay amba aan iska socdo amba dee ma garanaysaa aan liibaan oo aan nolosha sii wato labadaa mid soo kala gal maxaa sababa in dadkeena siiba dadkeena Soomaaliyeed inay u bataan dad qalbi jabsan horta qalbi jabka Soomaalida kaliya kuma koobna waa la inala qabo laakiin de duruufaha ayaa sii badinaya in kala tag uu bato khilaafyadu ay dhacaan waxaa inagu sii badinaya waa duruufaha iyo deegaanka in ku noolahay baa odhan kara marka waxaa keenaya waa deegaanka iyo duruufaha in ku noolahay astaanta kaliya ee lagu garto abwaaninta waxaan oran karnaa timaha waaweyn weeyaan because abwaan kastoo narka waxa weeyaan uu timo weyn may horta timuhu dee dhaqankan bay ka mid yihiin marka taasoo kaliya laguma garto laakiin way jiraan astaamo kale aan leenahay laakiin waxay ka mid yihiin un waxyaalaha dhaqankiya maadaama dadka abwaanada leeyahay dee dhaqankii bay sidaan oo waxyaalaha ka mid ah waxyaalihii dhaqanka ahaa marka dee dhaqanka un baan tusaale nooga